Soomaali masana u dambeysay yani gabadha islaameed la kufsanayo haddana la leeyahay raggii ku kufsaday mid kamid ah lagu daraya oo ooyo barooro way ma ahan wax la aqbali karaa. Absolutely, it's the saddest moment of my life. I feel for her pain. xanuunkeeda anagu baa dareemi karnaa. xawayaantii guursatay baa lagu leeyahay xawayaantii kufsatay baa lagu leeyahay ha guursadeen. cajiib. cadaaladda Soomaaliya meeshaas ay maraysaa markaasaa lagu leeyahay Soomaalina waxa loo damqo. magaaladii lagu kufsaday baa la sheegayaa see u sheegi kartaa magaalada waa meeshii lagu kufsaday de raggii kufsaday baa la yaqaanaa la soo qabtay xabsiga la geliyay 2 maalin ha ku jiro bariiskiisa iyo baastadiisa barta waa loogu geynayaa. cadaalad ma jirto wallahi. gabadhana ninka maba geeyaba ma geeyo daalimku dhalay kaafir way. gabar muslimada in kaafir ma isku qalmaan may iskuma qalmaan lagu jujuubaya waxa la leeyahay labana waa la xiray midna uu guursanaya hay oo soo guursada. gabadhii shalay video uu ka duubay isagoo kufsanayo bahdilayo oo barooranayso tooreyda oo gelinayay yani horta nacasiintu mar walba waxay taagad garaystaan moogtay midka weak ah the weak that cannot help himself kuwa bay diiradda saaraan. markaas lagu leeyahay Soomaalinimo la soo celiyo Soomaaliya la jirto walaashii hadii saa lagu sameyn lahaa mid isaga la dhalatay guriga dhex fadhisay canjeerada u dubayso muxuu sameyn lahaa just because qabiilkiisa weyn saaxib qabiil waxba kuma qaadaysaan maalinta yawm al-qiyaamana qabiil waxba kuma tarayo. yaa laytani kuntum turaban waa lagaga siinaya hooyada soo xasuusanaysa hooya dhashay baa lagu leeyahay waxa u doodaysa hadda yaa arko xabsiga yar ee la geliyay la leeyahay bal adigana ku badbaad ninka la xiray hamoodina jacayl iyo cadaalad in loo xiray ragga kaga badbaad way dadka umada kale yeelan waxba kuugu sameynina halkan ku naso nasiinay u tay bariiskii baa loo geenaya baastadii baa loo geenaya wuxuu cuni lahaa baa loo geenaya sigaarkiisii baa loo geenaya jaadkiisii baa loo geenaya khamrigiisii baa loo wax xaraamid ah wax ka xaraana ma jiraan. gabar yar oo maskiina oo 13 jir ilaa 14 jir u dhiganto oo uu og yahay in uu ka awood badan yahay waxa ku sameynaya. I don't believe maanta gabadha haday ahaan lahayd qabaa'ilada waaweyn Soomaali ku jiray waxa inay mari lahayd. Soomaali runta isku sheegno ama been weeye dhax ama run weeye dhax wallahi billahi tallahi haduu qabiil weyn ahaan lahaa gabadha reerkeeda saan umaada gashaan waxa aniga igala sii xawayaansan kan falka sameeyay waxa igala sii xawayaansan midkan ehelkeeda iyo qaraabadeeda kamid ah ee saa u hadlay dhiikarka waxa igu riday oo hadda live kan aan u soo galayba waa ka war xawayaan baatay nacas baatay xawayaan jaahil baatay gabadha xaqeeda hadoodsiin gunna yaro lagu keenay iyo wax yaro lagu aamusiyay gabadha marka ninka lagu guuriyo ma inay raaxaysanayso moodaa wala cadaab la gelinaya cadaabteedu baad u guurinaysan ilaahay kama baqaysid waad isliiday adiga Soomaali isku sii liidayo war Soomaalidan il naxariis ma taqaano il cabsatoon bay leeyihiin ana had ku sheegay nacaso markaas aad leedahay hawsha waa la dhameeyay odayaal baa galay wal odayaashan caloosha weyn la xaaraanta ku wada naaxay maxaad ula fariisanaysaa Soomaali dhan baa garabkaaga taagane Soomaali dhan baa garabkaaga taagane why a negotiation ula galaysaa adiga miyaa loo kufsaday gabadhii la kufsaday ma hadleen ma daawatay videoga nacasow videoga ma daawatay markaad leedahay odayaal baa fariistay oo laga hadlay arrinkan saan weeyo caynkana maxayo qaraabo ma tihiin gabadha cadowgeedii koowaad way seelaad baanatay gabadhana adiga iibiye adiga u ogolaaday in waxa lagu sameeyo dulli baa tahay dulli kala jirin baa tahay dullinimadana adaa isugu wacan waxaan dhacayana adiga dartaabay gabdhaha Islaameed ugu dhacayaan Soomaaliyeed tan hadda caadi bay noqonaysaa dhaqan Soomaali ee leedahay muusa ahayn dhaqan hadda noo yimid way adigana hadda caadi ka dhigay way aad caadi uga dhigaysaa in gabdhaha Soomaali intii la wada xumeeyo laba oday meel wada fariistaan wada hadlaan ma odaygan wada hadlay odaygan kale la hadlay la kufsaday odaygan maxaa meesha soo geliyay misaga la kufsaday ma gabar u dhalay baa la kufsaday gabar u dhalay haday ahaan lahayd muusa kula hadleen meelna kula muu fariistaan nacasow kula muu fariistaan war qofka bini aadamka hal mar bay naftiisa go'daa xawayaan baa tahay jaahil baa tahay Soomaali dhan baa garabkaada taagan markaas isliidaysaad leedahay annaga balaayo ma rabnay dhibaato ma rabno war dhibaato maada geysanin
adiga dhibaato lagu geystay adigii way waxa cawradaada meelaha intii lagu kufsado laga soo duubayo haddana social media la soo wada gelinayo gabadha Soomaaliyeed uma qalanta ninka inuu guursado ma geeyo gabadha ka sharaf badan maxaa u cadaabaysan gabadha maskiinta maxay idin ka samaysan why waxaa ka sii daran waxaan maqli jiray gabar xanuunkeeda gabar kala dareenta gabdhahan Soomaaliyeed jaahiliinta meesha wada fadhiyana waxay ku leeyihiin way aad ugu magacaabaysaa tuulayada war tuuladaada iyo qawaadka aabaha iyo diintaada garan mayno tuulo yaro gabar lagu kufsaday baa la soo sheegayaa oo soo qayliyaysaa haddii adiga kugu dhici lahayd oo lagu damqan lahaa oo lagu kici lahaa oo lagu nixi lahaa dhibaato iyo cadaabna waad geli lahayd adduun iyo aakhirana waad fikri lahayd halkan aynu joogno hadday joogi lahayd counseling baa loo samayn lahaa suicide bay sameeyeen dadka waxyaabaha lagu sameeyo gabar adag weeye aad iyo aad u adag weeye ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo waxaa lagu sameeyay dambi dhaaf ilaahay ha uga dhigo adduun iyo aakhirana ilaahay kuma ciriiriyo gabadha laakiin gabadha waxa toogtay waa nacaska social media intuu soo galay odayaal baa hadlayo fariistay wayna ka wada hadalna wayna ka wada tashanay maxaad ka tashatay inkaar qaba maxaad ka tashatay gabadha xaqeedii baa duudsiisay wax aynan u qalmin bad u soo qaaday ragga halka mid kali ee gabadha ay ku seexan karto waa in adduunyada laga musaafuriyaa tiirka waa in la geeyo afartooduba kan wax duubaya iyo saddexdan gabadha ka raacsan sida bahal waxa bay sharaf moodaan hal gabar ba afar nin iskugu tagaysaa markaasaa toorey la gelinayaa what the hell is going on xawayaan baatay adigii baa lagu haystaa awowgaadii hore la adoonsan jiray adoonnimadii baa kugu quflan amxaar markuu ku adoonsanayo waad ogoshay amxaar markuu ku garaacayo waad ogoshay ahbal baatay gabar Soomaaliyeed inaad u naxariisatid waa kari weysay waad awoodi weysay war haday gabar ahaan lahayd maxay ka bii lahayd waa saqiir way gabar yar way aad bay u yartay future bay lahayd mustaqbal bay lahayd nolol bay asaasan kartay reer iyo family iyo qof meel degan bay noqon kartay sharaf leh wixii dhan baad ka qaadateen qofka adigoo toogtaa la qaatay madax adigoo ka toogtaa hal mar adduunkan dhaafiya way u kufsanaysaa adigoo xalaal ku heli kara oo gabar reerkiina maad guursatid awal bar reer baad isku guursan jirteen ileen gabadha ay guurso kumayna dhihin maxaa ku geeyay inaad kufsatid Soomaaliya si dawladeedii iyada maxaa ku dhacay dawlad baynu maqalnaay waxyaabaha nuucan oo kala markay ka dhacaan hal nin oo ka hadlaya ma arkaysid kulligood ilmahoodii waxay wada joogan Malaysia iyo waxay wada joogan iyo Mareykan iyo Canada markaasay khamriga sanka iyo futada iskaga shubaan ilaahay ummadda waxa ka gooysid ilmahaada ka go'antay maanta nin wasiir ama dawlad ku jira ilmihiisa wanaagsan yaa itusin kara meeshan bay wada joogan alcoholic way kulligood waa laga wada faanaa sankii baa laga wada qabsaday qurun waxa wax u soo jeeday waa aabahood gabadhaas oo kala xaq laga galaya oo ku daawanaya doorasha dhacaysa hebel yaa la dooranaya yaa wax dooranaya yaas la dooranaya ama harba idin wato kulligin gaala idin wadato kulligin ma waxba dooranaysan ma awood wax ku dooratiin baad leedihiin Soomaali iyada isku xoog badan shafka sida iskaga wada garaacayeen ma anigoo reer hebel urug ba ku wada dhacday iyagoo dhan ba wada xanuunsan yihiin intii yareeyay caafimaadka qabtay markay hadashana waxa lagu leeyahay tuulada ma ahayn tuulada bay ka dhacday tuulada maxaa naga galay meesha ka dhacday annaga hawshii dhacday baynu sheegnay gabadhan xaqeedana kor iyo hoos uu soo bixi ilaahay umadiisa u kala garqaadaa adduunkan bayna kaga soo baxaysaa dhibaatada saddex afarta wacallo way xaraan bay hooyada abood iskugu tagan aniga hadda dhahaya social media na ka dhahaya Soomaali waxaan idin sheegayaa qofkaan iska celin karin bay doonata xaraan baa lagu dhalay afarta wacal hooyadood iyo abahood xaraannimo iskugu tagan aniga hadda halkan ka dhahay gabadha maskiinta ee waxba aan idinka qaban karin oo aanan helpless way ismeena caawin karin hal nin ba ku filna iyadoo dhanba afar bay iskugu tagan markaas ay toorey sii geliyeen markaas lagu leeyahay anigoo reehebel sanadkan 2017 waa inaad ka xishootaa hankaagu waa inuu dhaafsiisnaadaa qabiilkan waa inuu hankaaga dhaafsiisnaa qabiil baa ku dardaray Soomaali horey baa loo soo gumeystay iyadii baa hadda isa sii gumeysanaysa marka qabiilku ka wan yahay buu madax ka garaacaya ninku ka awood badan yahay buu garaacaya afarta qadaadiic la siinay shilimaadka laga siinay Addis Ababa
laga siinaya iskugu filan ma anigoo somalilaana ma anigoo puntland ma anigoo galmudug laana ma anigoo futuud laana kul gibigiinuba xawayaaniin baa tihiin dulli baana tihiin waana dullaysan tihiin ummadda soomaaliyeed isjecel walaalaha ah isku damqanaya ha kala dilina adigoo siyaasiya yaa kala dilaya ummadda soomaaliyeed adigoo siyaasiya yaa amxaaro u rufiyaamaya markaasoo cunug yaroo gabre la dhaho dharbaxa kugu soo qabanaya markaasaad qarsanaysaa walaalaha naga etoobiya walaalaha naga uganda walaalaha naga burundi war maxaa tuugsiga idin baray maxaad la tuugsataan inay ceeb tahay sanadkan tuugsi sooma ogediin soomaali way qoslaysaa qosol baa meel u yaalla iska qoslaysaa maxaad ku qosli hoog iyo ba iyo jab baad ku jirtaay maxaad ku qosli calanka buluuga la soo wada qaadanaya markii wax yar la sheegaba calanka buluuga war calankan dejiya calan waxaa taagta qof xur buu calan u babadaa ma calan baad warkiisa haysaa maradan xunee xidig lagugu soo sawiree buluuga lagaa gadanayo $5 lagaa siinayo qofka kaa gadaya $5 baa u daran calan micnihiisu barta calan waa wadan xura waa astaan wadan lagu yaqaano wey calankan aad la soo wada ordaysaan snapchat iyo facebook iyo meel walba iska daaya calan micnihiisu garan maysiin wadan xor buu calan u taagmaa calankaada markuu taagan yahay waa inaa wadankaada gacanta kugu jiraa maxaa waddan gacanta kugu jiraa ay dhalay baa gabdhahaadii kufsanaye kana sii duubaya maxaad ka qaban kartaa wuu kuleeyahy aaway raggii magaaladaa joogay ha aaway soomaalidii magaaladaa joogta what happened to them aaway ree hebel iyo ree hebel markay isqabtaan oo ree hebelkan yar laga gudbo sheekaduna waad aragteen galmudug iyo jubbaland waxa kala qabsaday waad aragteen you have seen awood bay sheekada gaadhay markaa dabaabaad baa la iskula soo baxaya waa loo yeeray farta loogu yeeray come here baa lagu dhaha waryaa nacso you two labadiinaba kaalaya way tageen adan xagga fariiso adna xagga fariiso what's your problem and what's your problem saan mar dambe ma duuli kartid adna mar dambe ma duuli kartid waa la soo laabtay waa la kala fariistay aabo eeg nin asaagi iyo ficiisa war laba wadan bay kula nahay iyaga Ethiopia la yiraahdo annagana Soomaali baana la dhahaa abti waxa Soomaaliya ka dhacay maslaxadeeda maahan in Addis Ababa laga soo taliyaa maahan laakiin nacasiintaan oo kale ku jira walaalahoodii kufsanaya gabdhahoodii kufsanaya raggii baa la kufsanaya iska daanaagihii markaan haween halku jooga raggii baa la kufsanaya qowmuluudkii la sheegayay mar dhow dhacay anaa idin sheegayay war Ilaahay ka baqa war dulinimada iska dulqaada war haweenkiina u naxariista qurbahay joogaan way wacayaan hay ree hebel maxaa laga soo sheegay ree hebelkii aabbaha dhakada ka was maxaa ree hebel u qaban kartaa adigii baa halkan ceer ku qaadanayo yaabane adigii baa yaabanoo nafti ilkaha ku sida ma ree hebel baa wax u qaban kartaa maxaad been iskugu sheegaysaa taxi baad saarantay 24 saac gurigaadii baa ka war la'day xaaskaagii baa ka war la'day ilmahaadii baa iskuul geysan la'day ree hebel buu kuleeyahay dagaal yar markuu ka dhaco gobolku ka yimi wuu qabsanayaa telefoonka maxaa la soo sheegay gobolkii ma ree hebel ma anagoo ree hebel war haddaynu qaaraanka aruurinaynaay ha lagu duulo ha la baabiiyay gaalada dhashay hay Soomaaliya wax ka dhacaan nin walbaba fariinku aasanaya breegu qabsanaya masaasaa Soomaalinimo jirta masaasaad wax ku raadinaysaa masaasaa wax lagu raadinaya wadan wili lama sheegin wadan 24 madaxweyne leh oo hortooda intii gabar lagu kufsaday ka hadli waayay oo yuu madaxweyne u yahay marka ma cidiis unbu madaxweyne u yahay inta laan dheerayaasha sheegatay laan dheere madaxweyne laan dheeraan ah saa iska dhahade madaxweyne walbaad maqashid uu aamusaya markay hawshan oo kala dhacdo uu aamusaya Soomaalidii hooyinkii Soomaalida intii shaaga madaxa laga wada mariyay ee amisom wadatay yaa lagu dul buqtiyaya kama oran karo hadday ahayd xalay bay ahayd markuu gaari amisom leeyahay intuu caasi dardaray 10 qofood ku dilay yaa isweydiiyay yaa maqlay doorashadii baa lagu mashquulsan yahay nin waliba 5 kun qaado aamo aniga ugu cadee warniyow balaayo madaxweynaha madaxweyne u tihiin shacab waxaad hesheen laakiin maskiin aanan aqoonin sida dulliga loola dagaalamo wallahi shacabkii waa horta qabyaalad barteen meeshaad ka guuleysateen waa halkaa qolad u kala fariisiseen qolo walba calan baa China looga soo sameeyay calankan baa adiga ku represent gareeya qolo kale calankan baa ku represent gareeya qolo kale calanka maalinta calankooda aad soo hadal qaadid balaayaad faraha la gashay calankooda maalinta aad taabatid waa balaayo adoo faraha la galay way heer waxay maraysaa gabadhii la kufsaday ha ka hadlin wariye moha war waan ka hadlayaa
I'll talk about it and there's nothing you can do about it. Hiil iyo hooba waan la garab taaganay gabadha. Wax walbo adduunka maanta iigu qiimaha badan haddaan hayo waa siin lahaa. Every single thing. Laakiin I don't believe miraayaddaa jabtay Soomaaliya oo dhan hadday isku tagto inaynu kabi karno. Marba miraayadeeda jabtay. Addoon baad ka dhigtay, dulli baad ka dhigtay, wax xun baad ku samaysaan. Laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu joogaa, wuu daawanayaa waxaan oo dhan. Waxaan oo kalena waa waxyaabihii qowm lagu halaagi jiray. Halaagna wuu inoo sugnaadayba. Dhul ma lihin, bad ma lihin, waddankan aynu joogno go back to your country baa ka socota. Soomaali marka la arko waa refugee baa lagu leeyahay. Ethiopian baynu dulli u noqonnay, Amxaaraynu dulli u noqonnay, Kenyaan baynu dulli u noqonnay, Ugandes baynu dulli u noqonnay. Wax walbaynu dullinimada ka qaadanay, Carab baynu ku leenahay, walaal baynu war Carab halkeen walaal ku noqonnay. War diinta baa inaga dhaxaysa. Diinta Ilaahay wax ka soo sukeeya ama ka shisheeyo inaga dhaxeeyo ma jirto. Cadowgeena koowaad weeye. Sacuudiga aad wax yar ka sheegaysaa war miyaadan muslim ahayn oo Sacuudiga islaamnimada ma isaga kaarkeeda bixiya. Markaarka islaamka lagu galay buu Sacuudigu bixiya. Dubai saaway walaalaheen way halkee walaal ka noqonnay. War bal DNA iska qaad oo meeshaad Carab ka noqotay soo xadee. Ninkaadan madowsan ka weyn baa tahay. Halkeed Carab ka noqotay. War gabadhaas loo gurmado Soomaaliya. Ilaahay aynu ka wada baqno subxaanahu wa tacaala maalin yawm al-qiyaama imaanaysa dadku wada siman yahay. Ninka lagu leeyahay laandheero waa ninkii naarta laga waayo laandheero ah. Nasabka lagu sheegayo waa kii jannada laga waayo. Jannada inoo wada ballana kii jannada laga waayo kaa way midka gunta ah. Gabadhaana waxaan leeyahay walaalay Ilaahay dhibkaada ha kuu sakhiro. Ilaahay waxaan ha kaa madoobay qalbigaada. Ilaahay waxaan ha ka saaro. Waxa dullinimada kugu sameeyna waa 4 xabo oo dullinimo lagu soo koriyay. Xaaraantu marka qofka lagu soo koriyo waa noocaas oo miiran. Ma xishoodaan, damiir ma lahan. Xaaraantii baa ka soo burqanaysa moogta. Saabay ka soo leedahay. Dhiig islaan iyo waxa lagu soo koriyay ma garanaysaa wax muslim loo soo dilay, wax balaayo dullinimo lagu keenay, wax wadan dhan lagu iibiyay, ummad dhan jiritaankooda wixii lagu baabi'iyay baa lagu keenay, baa lagu soo koriyay. Wiilow ama xanaaq ama sanka ha ku bararo. Xaaraan baa lagu soo koriyay, xaraami baana tahay. Jazaa'adaadana waad helaysaa. Ama maanta adduunyada lagugu siiyay ama aakhiro lagugu siiyay. Waad heli. You will. Gabar yar oo maskiina oo aan waxba qaban karin buu ku leeyahay iyo kufsanaya markaasuu ka sii duubaya. Markaasuu caytamaya afkiisa waxa ka baxay. War aaway Soomaalinimadii. Xaraamigaas oo kale. Dadka magaalada la deganaa meeyay mid ku janno taga ma la waay. Ma la waay. Reebel buu ka dhashay. Reebel yaa taaban kara. Yaa taaban kara. Reebel yaa taaban kara. Naga qabiil ka hadalnay. Qabiilkeenu ka hadalnay baa lagu leeyahay. Reebel waxan baad ku sheegtay. Ilaahay baa xumaanta kugu dhaliyay. Annagu kumaanu dhalin. Annaga falaysa minni managa ma tihid annaga. Banaankaas baynu ka taagannahay. Qabiilkaada waa la karbaashaya, waa la caayaya. Soomaali waxa meesha dhigay qabiilkaaga weeye. Haddii aad abtirsatid qabiilkaaga waxba kuma uusa siinin. Madaxweynahan Galmudug haysta kan Puntland haysta kan Soomaaliya haysta kan Jubbaland haysta kan Somaliland haysta qabiil baad u difaacdaa laakiin isweydii shakhsiyan muxuu ku taray inuu Soomaali kala googooyo uu kala baabi'iyo qaarna Amxaar ugu shubto qaarna Kenya loogu shubo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed bartaa uu ka baxay baa lagu leeyahay cajiib awgeey wuxuu ku soo halgamay halkee la geeyay halkee ka baxeen adoo miirano nacas oo meesha fadhiyo madaxweyne sheeganaya mar madaxweyne dhahay kaga dhigtay haye 100 mar baynu ku dhahnay madaxweyneena daa oo naga tag oo meelaha ka timi ceertaada ku laabo Ilaahay iimaanka ka qaadi iimaanka Ilaahay ka qaaday war lacagtan aad eegaysaan iyo powerkan ciidda waa inay kala weynaataa wadanka waa inuu kala weynaadaa maahan sanaadiiq yar lagu siiyay iyo power yar lagu siiyay Amxaara ku siisay iyo Amxaara powerkeeda ha fiirin wadankeedu waa u nabad dadkoodu waa u nabad bad ma haystaan oo resource ma haystaan oo waxba ma haystaan meeshan bay u soo hunguri weeyeen anigii shacabka ahaa inta fahmaye adigii siyaasiga ahaa maxaa inta u garan laaday way inta u garan laaday waxaan ka baqayaa marka dambe hawshan sida u socoto guriyihiina in loo tariyo xaasaskiina in loo tariyaan ka baqayaa marka dambe ee lagu dhaho tan ha guursanina tan guurso war wiilow isqabo Soomaali hadda way ku garab taagan tahay istacabkan kuugu kacay saad u dajin lahayd damiirkaagii la soo laabo damiirkaadi waad bagaday waad biibisay wallahi billahi maantan idin sheegaya Soomaaliyeey ama ka nax ama ka farax adiga ku taalaay
dadkan siyaasadda ku jira muuqaal iyo midab iyo af way noo eg yihiin laakiin annaga maaha. They are not one of us. naga mid maaha. waa dad ayaga dhanba asalkooda hala soo baara ayaga naftirkooda kuwan siyaasiyiinta isku sheegaya hala soo baara asalkooga iyo dhiigooga iyo jiritaankooga maaha. dulli weeye gebigooduba rufyaamayaan ayagiibaa is rufyaamaya ayagiibaa is dabaguraya ayagiibaa waddanka sii kala googoynaya ayagiibaa ummadda soomaaliyeed cadaabad iyo waxaana la aqoonay sii kala dhex dhigaya ummadda isjecel walaalaha ah. war hal baa tihiin 9 milyan oo majaxo xun oo gaagaaban oo foolxumo badan baa tihiin East Africa gees ka degan. geeskaad ka deganayd waa lagugu haystaa maanta. dadkii yaqaana axwaazi qolo waa qoom dhan wey stateless wey dhul ma haystaan. meel ay degan yihiin maanta axwaazi ee lagu tiriyaa meeshaas degan yihiin maahan waa la kala qaybsaday iyagoo dhanba gebigooduba. falastiin dhibaatada ka socoto waad aragtaan waynugu soo socotaan laakiin waynu ka gaari karnaa. we have the time. we can save our country. we can fight for our country. we can die for our country. we can sacrifice for our country. qofka saa sameynaya laakiin waa inuu ka ahaadaa qabyaalad free of mind. maskaxda inay ka baxdaa. gabadha yaree walaasheen ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryayaa inuu ilaahay dhibka ka dulqaado, inuu ilaahay khayr ugu bedelo, inuu ilaahay dambi dhaaf ugu dhigo wixii ku dhacay, inuu ilaahay ka dhigo tii Soomaali isku soo dhaweyn lahayd. intaas ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala. idinkana gabadhaas qof walbo wici kara, qof walbo la hadli kara, qof walbo niyad u dhisi kara ha u dhiso. haddaad awood leedahay aad ku joojisid arooskaa la sheegayay iyo ninkaa loo dhisay gabadhaana please ka qayb qaado. annagu waan wadnaa hawsha waanu ku jirnaa nolosheeda inta ka dhimanna waynu meeleyn karnaa. laakiin waxaana marnaba aqbali karin marnaba yeeli karin ninkii kufsaday gabadha in haddana guri loo geeyo. waa cadaab kale wey oo loo geynayay gabadha ha laga daayay ninkaa kufsaday yaana lagu xirin kuma xiranto diiniyanba ma guursan karo ka daaya dheh. ilmihiina meeshaad rabtaan kala dhaca yowmal qiyaamaha ama qof damiir la markuu yimaado dee oo aanan u joojinin qabiil iyo diinta aabihii iyo hooyadii oo ilmaha la xisaabtama. inta ka horeysa gabadha ninkaa kuma ogin. haddaynu nahay Soomaali siiba groupka naga kuma ogin inay gabadha ninkaa guursato loo guuriyo. ninkaa hadlaya nacaska ah gabadha wax isku yihiin war nacasow dib isugu laabo. waxaan waa adduun naftu mar bay go'daa yaana lagu handadin yaana lagu booteenin yaana niyada lagaa jibin. waxba kuma dhaamo qofkan qabiilka kala haysta. waad siman tihiin nin iyo nin baad isla tihiin. ma laba nin oo hadlaysa camal u hadasheen oo raganimo oo go'aan la gaar. go'aan maxaa la gaarayaa? waxaaba sanka lagaa gelinayaaba ninkii gabadha kufsaday baa guursanayo. bal mucjisada eega fajaca eega bal dhibaatada eega. war sideed ugu dartaa ninkan sawirkiisa markay aragto xusuus bay begelaysaa iyo rafaad iyo silaac ay soo martay. siduu maalin walba uga soo horkacaa ninkii shalay xumeeyay gabadha? how can she tolerate that? sidee ula yani aqliga saliimka isticmaal. qof aniga cadaabay maanta inuu iga soo horbaxo iska daaya aragtidiisa ay dhibaysa. I don't want to see them. war ilaahay ka baqa. gabadha meeshaad ku wadaan ka joojiya. war Soomaali siiba gabdhahan meesha jooga ee 2 kiilo makeup-ka wajiga soo marsanaya $900 ku khasaarinaya. gabadha walaashiina waca oo u taxsiyeeya oo niyada u dhisa oo waxaad qaban kartaan hala harina. ilaahay baan idinku dhaariyay gabar baa tahay xanuunkeed in adiga dareentid bay ahayd. annagoo raga inaan qayqaylina ma ahayn idinka inaan kacdaan bay ahayd. maxaa afka idin wada qabtay? way u wada aamusantihiin. maalina maalmaha ahayn qofaad u naxaysid ama qof naxaankaaga ama adigay kugu imaanaysaa. wallahi billahi tullahi adigay kugu imaanaysaa. odayna meeshan ma jiro Maxamed Axmed Koofiyo. oday ma jiro saaxib. oday iima taliyo oday kuuma taliyo. oday reerkiisa kama badna. wax maslaxad walbuu galay wuxuu fiirinayaa reerkan maslaxadiisa waa maxay. odayga lagu sheegayo horta waa noocaas oo miiran ka qashin bah. ilaahay ka baqa oo gabadha la hadla oo odayaashan aanu wareersan naga daaya oo Soomaaliya aynu u sara kacno oo aynu soo ceshano wadankeena. wadamadan inta joogtana saynu ku joogno way wada ognahay ina idin kaga sheekeeyo maaha. saa wadamadan ku joogno waynu wada ognahay gabigeenuba. laguma rabo. They don't want you as here. They want you to go back. You are not welcomed here. How many times are lagu dhahay go back to your own country? How many times are lagu dhahay eriga?
why iskugu dhejinaynaa marka? Why? Can you tell me the reason why? dhul buu ilaahay ina siiyey, uma jeedno. dhegaynu leenahay laakiin waxba ma maqlaan. qabyaalad waxaa ahayn ma maqlaan. indhaylu leenahay qabiilkayga waxaa ahayn ma arkaan. af buu ilaahay ku siiyey, qabiil waxaa ahayn kayga waxaa ahayn kuma difaaco. war ilaahay ka baqa, meesha ka kaca. annagu waxaynu qaban karna garaankeenna waynu qabannay. dad badan baa ku dhahaya maasaa yeeshid marka waanu qabannay. We don't have to post everything that we do, but we're doing something. At least we understand it. It's not like we just talk over here and then do our things. No, it doesn't go like that. It doesn't go like that. We are doing something. And we don't have to share with nobody. What we're doing from the heart. We're not doing just to get the fame and just to be somewhere or something. We're not doing for that. If you want to do something, get up for the sake of Somalinimo. ilaahay dartii iyo Soomaalinimo waxaad ku qabanaysid ku qabo. kuwa dawladda ku jirana haddaanan annaga iska qabanin heer waxaanu gaaraynaa aanan waxba ka qaban karin. migrationkii Ethiopian baa fadhiya, hay passport Australian baan wataa, Somalian 3 bil aadaya holiday wuu fiirinayaa. No, you're not welcome, please. fiisa kuma siin karo dalku gal ah waddankaagii ku laabo. yaa aniga saa idhahay amxaar baa saa idhahay. Just because passport ajnabi baan wataa adigoo amxaar doesn't mean dalboorka inay iga celin kartid. way dhacday, dad ay ku dhacday baa la hayaa. waddanka nala jooga loo diiday inuu waddanka soo galo for 5 years, 5 sanadood. waxaanu intaa kadib dhowranaa. what are we gonna wait? waddankaagii baa tegaysaa, waxaa lagu leeyahay maanta ma ciidi kartidoo Amazon baa shirays. oo maxaa iga galay shirkaada? sayna u ciidi karin. 30 maalin baan soo soonnaa. maanta waa yawmul farax, waa inaan ilmahayga banaanka geeyaa, masaajidka kusoo dukadaa, ciidaa meel walba waddankayga aan ka tagaa. No, you cannot do that. bandow baa saaran magaaladii. wadda hebel way xiran tahay, wadda hele way xiran tahay, soo ma socon kartid. haddaa socotid gaariga Amazon baa lagu marsiinaya. simple as that. you gone. qof kuu doodayna ma haysatid, qof wax weydiinayana ma haysatid. hay baarlamaankii doorashaa jirto oo jaamacadii dhan waa la wada xiray. war jaamacad iyo election maxaa iska galay? Soomaaliya hadda qofka jooga jaamacadaha dhan way wada xiran yihiin. bal jaamacad iyo police station iyo isbitaal la xiray halkee lagu arkay? halkee lagu arkay caalamka? waa saddexda waxayna la xirin. meeshaynu ku soconno meel dhow baad moodaan idinka. halkana ka fikiraysaan. anugu halkanan joogaa horta. yaa halkanan joogaa. haddaan iska dhaadhiciyo muhayo dhib ma arkay sidoo hawshan socto waxba kaama gelin. abti iskama dhaadhicin karo, way qabanaysaa. mar baan ku kacayaa runta. And there's a time that you wake up with the reality. When you wake up to the reality, it's going to be too late. It's better for you to wake up right now and do whatever you can. Whatever you can. Let people hear your voice. Tell the world that you are something and you are going to be something. Put your name on the map again. International community. The whole problem, let me tell you this. Problemka Somali iyo adduunka ugu weyn waa the UN. We don't want to be a part of the UN horta. That's one thing. I hope I implement this idea. The UN is our biggest problem. We don't have no other problem rather than United Nations. dhibaatada ugu weyn Soomaaliya waxay naga soo gaartay waa the UN ka, and we are not going to be a part of it anymore. We are sick and tired of it. Donation baa lagu siinayaa, baa lagu leeyahay hey fila Soomaaliya ma soo dhaaftay iyo Nairobi. raggii meelahan ku jiray qaxootiyada iyo barakacayaasha iyo bakaaraha iyo dhex lugeynaya waxa ma gaaraan. oo yaad siisay marka donationka? yaad siisaa? Who do you give? Because we don't receive nothing. hay waxa lagu leeyahay NGO heblow baa waxaa tiri sa NGO waa mid hortaagan Somali currency. Soomaaliya shilin Soomaali lagama isticmaalo hadda. lacag uu waddankaada leeyahay ma jirto. dollar baa wax ku kala gadataa. Are you a part of America? ma Mareykan baynu ka tirsannahay? shilin Soomaali ma shaqeeyo Soomaali kama shaqeeyo. Ask me. waxa lagu leeyahay iisoo tuur. oo maxaa la tuuraya? lacagta iisoo tuur. oo cashkii waddanka meeyay. There's no cash. waddan markii la burburinayna horta waxaa lagala dagaalamaa currency-ga. currency ma samaysan karna hadda. US dollars baa sanka lagaa geliyay. shaah baa cabaysaa $1 ku gadanaysaa. kabaa lagu masaxayaa $1 tuuraysaa. gaari baa raacaysaa $1 tuur. What the hell is that? There's a lot of people who can't afford that. How many people can afford even $1 for a day? There's no one.
there's no jobs, there's nothing. dadka banaanka wax ka sugo marka the people that we provide, we send bills back home, they cannot survive for the next 5 years coming. Because what do you send? $500 a month? It's not enough. Somalia hadda way ka tagtay sheekadaas. It's not even enough. We're not even close to there. So please, let's wake up. When are we going to wake up as Somali people? When hurdnaa nimayo, hurdada aynu ka kacno, ilaahay aynu u toobad keenno, ilaahay aynu barino, quluubta aynu isku furno, dhalinyarooy, quluubta aynu isku furno, qabiil waxba kuma qabto. markaas oo tahriibaysay ama magaaladan imaanaysay ma qabiilkaagaa ku keenay ilaahayge. markaa dhibaatada ku jirtay Kenya lagugu biilayay $100 lagugu siinay ma qabiilkaada kuu soo dirayay $100. Familygaada kuu soo dirayay, hooyadaaba kugu dhibtootay, aabahaaba kugu dhibtootay, labada ka duceyso. inta ka soo hartama waxbay kuu qabteen. wax aanan culays ahayn kuumaynaan qaban. culays bay kugu soo ziyaadiyeen. qaaraan baa la doonaya, kan baa la doonaya, wax baa la doonaya, nin baa la dilaya, burcad baa saayiri, kan baa saayiri. waxaanan ahayn anigu uma jeedo. laakiin waaga ay joogtay Kenya ama Ethiopia ama meel walbaba lagu soo biilayay qabiilkaada kumuu istaagin. markaad wax dishay oo aad qof daqartay qabiilkaada kumuu soo istaagin. familygaada kula wareeray. markii adoon iyo amxaar uu ku xiranayay ma qabiilkaada ku istaagay? No. hooyadaa bay ahayd waxa kula rafaadaya ama aabaha ama familkaaga. qabiil wax uu ka haleeyay mooyaane waxba kumuu saxin. ma ilaahay ka baqid marka saa u fikirtid. midda kale gabar baa la kufsaday. Soomaali weey. markaad leedahay waxba kama jiraan. It didn't happen. walaasha hadday ku dhici lahayd baroortaadu ilaa waxa laga maqli lahaa adduunka dabadiisa. waad cabaadi lahayd sida orgigii. cabaadkaada adduunyada laga fadhin way lahaa. beenna maahan wayna jirtaa arrinkan gabadhana waa la kufsaday. meesha lagu kufsadayna qof walbaa garanaysa ama ka xanaaq ama ku farax adigay ku taala. Soomaali cid kama xigtid. Soomaali waa loo wada dhan yahay. anuu hadal badan idin ma hayo. intaa waan idin sheegayaa walaalo. waana nagu kala wadaysaan. haddaynu inaan kacna aad doonaysaanna you know where to find me. haddaynan doonin inaynu kacnana dee idinka noo hurdo oo nin asaagaaya waddankaagii ha kuugu taliyo. waddankaad adiga lahayd ha kuugu taliyo. ha ku dhaho saan baa loo socdaa, saan baa loo seexdaa, saan baa wax loo cunaa, saan baa adduunyada loola macaamilaa, kan baa la yeelaa. reer Ingiriis safaarad Soomaali waa lagu leeyahay. Ethiopia oo ah safaaradda Soomaaliya iyo Ingiriiska. maxaa idinku dhacay? markii Somaliland la qabanayo ama Puntland ama Jubaland ama Hebeland meel la kala istaagan ma laha. waa tiro badan tihiin laakiin quantity ma lihidin. quantity baad leedihiin laakiin quality ma lihidin. Soomaalida tiradeedu waxba ma sheegto. nothing. hal amxaara haysta sankaas uga duran yihiin dhab. meel lama aadi karaan. sidii eygii baa loo tilmaamaa meesha aadayaan. left and right, left and right, left and right. walaalkii markuu u tilmaamay maagana shada hela buu ku leeyahay adigoo reer hebel waxba ii sheegin anigu. hay mar walba qosol waad iska qosli maanta dhan ha amba ku jirta. ma qosol baa ku jira? ma qosol baa ku yaal? Soomaali baa ilaahay ka dhigay waad liidataay. ummadda adduunka adaa ugu liita maanta hindi u ahaa tuulo yaroo hindi ka tirsan buu isla barbar dhigay tuulada wadadii Soomaaliya ku socotaa buu dhahay. maayarkii tuulada haystay baa xanaaqay oo ku dhahaya what the fuck is wrong with you? sidee Soomaaliya noola meel dhigi kartaa annaga? Prime Ministerka India ahayd wixii saa lagu haystay. Google gareeyo akhriya newska oo wararka daba raaca. hindi tuulo ka tirsan yaa la leeyahay Soomaaliya adiga isku sibad ku socotaan. way ka xanaaqayaan annagii Soomaaliya sidee isku meel noo dhigi kartaa bay taagan yihiin. maxaa kuu haray intaa ka badan? still ma reehbal bad u afogad garaynaysaa? still ma reehbal bad ka garaynaysaa? halkan reer badan baa degan. hal miis waxaa wax ku wada cunayo aragnay markaynu wacyigelinta sameynay kadib. laba qabiilo weligood is ag fariisanin baa soo fariistay. wax isla cunaya, kaftamaya, sheekaysanaya. maxaasaa u diiday Soomaalidii kale? maxaa dadka loo qabsanayaa? maxaa loo leeyahay qabiilkaygu ka hadlay, qabiilkaygu saan yeelay? qabiilkaada ma kitaabka Ilaahay ba? ma kitaabka Ilaahay ba? qabiilkaagu muxuu qabiilada kala dheeri? muxuu qabiilada kala dheeri? inuu ka liito mooyaane muxuu dheeri? intaad leedahay ma anigoo reer hebel war waxaad tahay Ilaahay baa kaa dhigay. cidi kaa qaadan mayso. cidna kaa qaadi ma karto ma jirto. laakiin dadka sanka ha ka gelin. Soomaali way wada siman tahay taa ha kaa dhaadhacdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنك فليس مني من نجمتي أنك برنامج منو كتهاجنا هاي. قبيلك هذا ولا كرباشية ولا عاية Soomaali waxa meesha dhigay qabiilkaaga weeye. haddii aad abtirsid qabiilkaaga waxa ku muusa siinin
madaxweynahan galmudug haysta kan puntland haysta kan soomaaliya haysta kan jubbaland haysta kan somaliland haysta qabiil baad u difaacdaa laakiin isweydii shakhsiyan muxuu kuu taray inuu soomaali kala googooyo uu kala baabi'iyo qaarna amxaaro ugu shubto qaarna kenya loogu shubo jiritaankii ummadda soomaaliyeed bartaa wuu ka baxay baa lagu leeyahay cajiib awgee wuxuu kusoo halgamaya halkee la geeyay halkee ka baxeen adoo miirano nacasoo meeshaan fadhiyo madaxweyne sheeganaya mar un madaxweyne dhehe kaga dhigtay haye 100 mar baynu ku dhahnay madaxweynena daa oo naga tag oo meelaha ka timi ceertaada ku laabo ilaahay iimaanka kaa qaadi iimaanka ilaahay kaa qaaday war lacagtan aad eegaysaan iyo powerkan ciidda waa inay kaala weynaataa waddanka waa inuu kaala weynaadaa maahan sanaadiiq yar lagu siiyey iyo power yar lagu siiyey amxaaro ku siisay iyo amxaaro powerkeeda ha fiirin waddankeedu waa u nabad dadkoodu waa u nabad bad ma haystaan oo resource ma haystaan oo waxba ma haystaan meeshan bay usoo hunguri weyn anigii shacabka ahaaba intaa fahmaye adigii siyaasiga ahaa maxaa intaa u garan la'day waay intaa u garan la'day waxaan ka baqayaa marka dambe hawshan sida u socoto guryihiina in loo tariyo xaasaskiina in loo tariyaan ka baqayaa marka dambe ee lagu dhaho tan ha guursanina tan guurso war wiilow isqabo Soomaali hadda way ku garab taagan tahay shacabkan kuugu kacay saad u dajin lahayd damiirkaagii la soo laabo damiirkaadii waad bagaday waad biibisay wallahi ibillaahi maantaan idin sheegaya Soomaaliyeey ama kan ama ka farax adiga ku taalaay dadkan siyaasadda ku jira muuqaal iyo midab iyo af weynoo egyihiin laakiin annaga maaha they are not one of us naga mid maaha waa dad ayaga dhanba asalkooda la soo baara ayaga naftirkooda kuwan siyaasiyiinta isku sheegaya hala soo baara asalkooga iyo dhiigooga iyo jiritaankooga maaha dulli weeye gibigooduba rufyaamayaan ayagii baa isrufyaamaya ayagii baa isdaba guraya ayagii baa waddanka sii kala googoynaya ayagii baa ummadda Soomaaliyeed cadaabad iyo waxaana la aqoon sii kala dhex dhigay ummadda isjecel walaalaha ah war hal baa tihiin 9 milyan oo majaxo xun oo gaagaaban oo furxumo badan baa tihiin East Africa geeska degan geeskaad ka deganeed waa lagugu haystaa maanta dadkii yaqaana axwaazi qolo waa qoom dhan way stateless way dhul ma haystaan meel ay degan yihiin maanta axwaazi ee lagu tiriyaa meeshaas ay degan yihiin maahan waa la kala qaybsaday iyagoo dhanba gibigooduba Falastiin dhibaatada ka socoto waad aragtaan waynugu soo socotaan laakiin waynu ka gaari karnaa we have the time we can save our country we can fight for our country we can die for our country we can sacrifice for our country qofka saa sameynaya laakiin waa inuu ka ahaadaa qabyaalad free of mind iskaxda inay ka baxdaa gabadha yare walaasheen ahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryayaa inuu Ilaahay dhibka ka dulqaado inuu Ilaahay khayr ugu bedelo inuu Ilaahay dambi dhaaf ugu dhigo wixii ku dhacay inuu Ilaahay ka dhigo tii Soomaali isku soo dhaweyn lahayd intaas Ilaahay ka baryayaa subhanahu wa ta'ala idinkana gabadhaas qof walba wici kara qof walba la hadli kara qof walba niyad u dhisi kara ha u dhiso haddaad awood leedahay aad ku joojisid arooska la sheegay in ninka loo dhisay gabadhaana please ka qayb qaado annagu waan wadnaa hawsha waanu ku jirnaa nolosheeda inta ka dhimanna waynu meeleen karnaa laakiin waxaan marnaba aqbali karin marnaba yeeli karin ninkii kufsaday gabadha in haddana guri loo geeyo waa cadaab kale way oo loo geenayay gabadha laga daayay ninka kufsaday yaana lagu xirin kuma xiranto diiniyan ba ma guursan karo ka daaya dheh ilmihiina meeshaad rabtaan kala dhaca yawmal qiyaamaha ama qof damiir la markuu yimaado oo aanan u joojinin qabiil iyo diinta aabihii iyo hooyadii oo ilmaha la xisaabtama inta ka horeysa gabadha ninka kuma ogin haddaynu nahay Soomaali siiba groupka naga kuma ogin inay gabadha ninka guursato loo guuriyo ninka hadlaya nacaska gabadha wax isku yihiin war nacasow dib isugu laabo waxan waa adduun naftu marbay go'daa yaana lagu handadin yaana lagu booteenin yaana niyada laga jibin waxba kuma dhaamo qofkan qabiilka kala haysta waad simantihiin nin iyo nin baad isla tihiin ma laba nin oo hadlaysa amal u hadasheen oo raganimo oo go'aan la gaar go'aan maxaa la gaarayaa waxaaba sanka laga gelinayaa ninkii gabadha kufsaday baa guursanayo bal mucjisada eega fajaca eega bal dhibaatada eega war sideed ugu dartaa ninkan sawirkiisa markay aragto xusuus bay galaysaa iyo rafaad iyo silaac ay soo martay sidoo maalin walba uga soo horkacaa ninkii shalay xumeeyay gabadha how can she tolerate that
sidee ula yani caqliga saliimka isticmaal. qof aniga cadaabay maanta inuu iga soo horbaxo iska daayo aragtidiisa ay dhibaysa. I don't wanna see them. war ilaahay ka baqa. gabadha meeshaad ku wadaan ka joojiya. war Soomaali siiba gabdhahan meesha jooga ee 2 kiilo makeup-ka wajiga soo marsanaya $900 ku khasaarinaya. gabadha walaashiina waca oo u tacsiyeeya oo niyada u dhisa oo waxaad qaban kartaan hala harina. ilaahay baan idinku dhaariyay gabar baa tahay xanuunkeed in adiga dareentid bay ahayd. anagoo raga inaan qayqaylina ma ahayn idinka inaan kacdaan bay ahayd. maxaa afka idin wada qabtay? way u wada aamusantihiin. maalina maalmaha ahayn qofaad u naxaysid ama qof naxaadi aad u adag weey. ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo. waxa lagu sameeyay dambi dhaaf ilaahay ha uga dhigo adduun iyo aakhirana ilaahay kuma ciriiriyo gabadha. laakiin gabadha waxa toogtay waa nacaska social media intuu soo galay odayaal baa hadlayo fariistay wayna ka wada hadalna wayna ka wada tashanay. maxaad ka tashatay? maxaad ka tashatay? inkaar qaba maxaad ka tashatay? gabadha xaqeedii baa duudsiisay. wax aynan u qalmin bad u soo qaaday. ragga halka mid kali ee gabadha ay ku seexan karto waa in adduunyada laga musaafiriyaa. tiirka waa in la geeyo afartooduba kan wax duubaya iyo saddexdan gabadha ka raacsan sidii bahal. waxaabay sharaf ma wadaan. waxaabay sharaf ma wadaan. hal gabar ba 4 nin iskugu tagaysaa markaasaa toorey la gelinayaa. What the hell is going on? What the hell is going on? xawayaan baatay adigii baa lagu haystaa awowgaadii hore la adoonsan jiray adoonnimadii baa kugu quflan. amxaar markuu ku adoonsanayo waad ogoshay. amxaar markuu ku garaacayo waad ogoshay. ahbal baatay gabar Soomaaliyeedna inaad u naxariisatid waa kari weysay. waad awoodi weysay. war hadday gabar ahaan lahayd maxay kaa bi'i lahayd? waa saqiir weey. gabar yar weey. aad bay u yartay. future bay lahayd. mustaqbal bay lahayd. nolol bay aasaasan kartay. reer iyo family iyo qof meel degan bay noqon kartay sharaf leh. wixii dhan baad ka qaadateen. qofka adigoo toogtaa la qaatay. madax adigoo ka toogta hal mar adduunkan dhaafiya. way u kufsanaysaa adigoo xalaal ku heli kara oo gabar reerkiina maad guursatid. awal bar reer baad isku guursan jirteen. ileen gabadha ay guurso kumayna dhihine maxaa kuu geeyay inaad kufsatid? Soomaaliya se dawladeedii iyada maxaa ku dhacay? dawlad baynu maqalnaay. waxyaabaha nuucan oo kale markay ka dhacaan hal nin oo ka hadlaya ma arkaysid. nin ka hadlaya ma arkaysid. kulligood ilmahoodii waxay wada joogaan Malaysia iyo waxay wada joogaan iyo Mareykan iyo Canada. markaasay khamriga sanka iyo futada iskaga shubaan. ilaahay ummadda waxaa ka gooysid ilmahaada ka go'antay. maanta nin wasiir ama dawlad ku jira ilmihiisa wanaagsan yaa itusin kara. meeshan bay wada joogaan alcoholic way kulligood. waa laga wada faanaa. sankii baa laga wada qabsaday. qurun waxa wax u soo jeeday waa aabahood. gabadhaas oo kale xaq laga galaya oo ku daawanaya. doorasha dhacaysa heblo yaa la dooranaya. yaa wax dooranaya yaas la dooranaya. amxaar baa idin wato kulligiin. gaala idin wadato kulligiin. ma waxbaa dooranaysaan? ma awood wax ku dooratiin baad leedihiin? Soomaali iyada isku xoog badan. shafka sida iskaga wada garaacayeen ma anigoo reer hebel ma anigoo reer hebel urug baa ku wada dhacday. iyagoo dhan baa wada xanuunsan yihiin. intii yareeda caafimaadka qabtay markay hadashana waxa lagu leeyahay tuulada ma ahayn tuulada bay ka dhacday. tuulada maxaa naga galay meesha ka dhacday? annaga hawshii dhacday baynu sheegnay. gabadhan xaqeedana kor iyo hoos wuu soo bixi. ilaahay ummadiisa u kala garqaadaa. adduunkan bayna kaga soo baxaysaa dhibaatada. 3-4 wacallo way xaraan bay hooyada abood iskugu tagan. aniga hadda dhahaya social media na ka dhahaya Soomaali waxaan idin sheegayaa qofkaan iska celin karin bay doonata. xaraan baa lagu dhalay 4 wacal. hooyadood iyo abahood xaaraannimo iskugu tagan. aniga hadda halkan ka dhahaya gabadha maskiinta ah ee waxba aan idinka qaban karin oo aanan helpless way ismeena caawin karin. hal nin ba ku filna iyadoo dhanba 4 bay iskugu tagan. markaasay toorey sii geliyeen. markaasaa lagu leeyahay anigoo reer hebel sanadkan 2017 waa inaad ka xishootaa. hankaagu waa inuu dhaafsiisnaadaa qabiilkan. qabiilkan waa inuu hankaaga dhaafsiisnaa. qabiil baa ku dardaray. Soomaali horey baa loo soo gumaystay. iyadii baa hadda isa sii gumaysanaysa marka. qabiilba qabiilku ka wan yahay buu madax ka garaacaya. ninba ninku ka awood badan yahay buu garaacaya. 4 qadaadiic la siinaya shilimaadka laga siinaya Addis Ababa laga siinaya iskugu filan. ma anigoo Somaliland ma anigoo Puntland ma anigoo Galmudug laana ma anigoo Futuud laana kul gibigiinu waxa xawayaaniin baatiin dulli baanatiin wana dullaysantiin. ummadda Soomaaliyeed isjecel walaalaha ah isku damqanaya ha kala dilina. adigoo siyaasiya yaa kala dilaya ummadda Soomaaliyeed.
adigoo siyaasiya iyo amxaaro u rufiyaamaya markaasoo cunug yaroo gabro la dhaho dharbaxa kugu soo qabanaya markaasaad qarsanaysaa walaalaha naga Ethiopia walaalaha naga Uganda walaalaha naga Burundi war maxaa tuugsiga idin baray maxaad la tuugsataan inay ceeb tahay sanadkan tuugsi soo ma ogidin Soomaali way qoslaysaa qosol baa meel u yaala iska qoslaysaa maxaad ku qosli hoog iyo ba iyo jabbaad ku jirtaa maxaad ku qosli calanka buluuga la soo wada qaadanaya markii wax yar la sheegay calanka buluuga war calankan dajiya calan waxaa taagta qof xur buu calan u babadaa ma calan baad warkiisa haysaa maradan xunee xidig lagugu soo sawirey buluuga lagaa gadanayo $5 lagaa siinayo qofka kaa gadaya $5 baa u daran calan micnihiisu barta calan waa wadan xura waa astaan wadan lagu yaqaano wey calankan aad la soo wada ordaysaan Snapchat iyo Facebook iyo meel walba iska daaya calan micnihiisu garan maysiin wadan xor buu calan u taagmaa calankaada markuu taagan yahay waa inaa wadankaada gacanta kugu jiraa maxaa wadan gacanta kugu jiraa ay dhalay baa gabdhahaadii kufsanayee kana sii duubaya maxaad ka qaban kartaa wuu kuleeyahay aaway raggii magaaladaa joogay aaway soomaalidii magaaladaa joogta what happened to them aaway ree hebel markay isqabtaan oo ree hebelkan yar laga gudbo sheekaduna waad aragteen galmudug iyo Jubbaland waxa kala qabsaday waad aragteen you have seen awood bay sheekada gaadhay markaa dabaabaad baa la iskula soo baxaya waa loo yeeray farta loogu yeeray come here baa lagu dhahaa wariya nacso you too labadiinaba kaalaya way tageen adan xagga fariiso adna xagga fariiso what's your problem and what's your problem san mar dambe ma duuli kartid adna mar dambe ma duuli kartid Soomaali masana u dambeysay yani gabadha islaameed la kufsanayo haddana la leeyahay raggii kufsaday mid kamid ah lagu dareeyaa oo ooyo barooro way ma ahan wax la aqbali karaa absolutely it's the saddest moment of my life I feel for her pain xanuunkeeda anagu ma dareemi karno xawayaantii guursatay baa lagu leeyahay xawayaantii kufsatay baa lagu leeyahay guursadeen عجيب عدالة Soomaaliya meeshaas ay maraysaa markaas lagu leeyahay Soomaalina waxa loo damqo magaalada lagu kufsaday baa la sheegayaa say u sheegi kartaa magaalada waa meeshii lagu kufsaday raggii kufsaday baa la yaqaanaa la soo qabtay xabsiga la geliyay 2 maalin ku jiro bariiskiisa iyo baastadiisa barta waa loogu geynayaa cadaalad ma jirto wallahi gabadhana ninka maba geeyaba ma geeyo daalimku dhalay kaafir way gabar muslimada in kaafir ma isku qalmaan may iskuma qalmaan lagu jujuubaya waxa la leeyahay labana waa la xiray midna uu guursanaya oo soo guursada gabadhii shalay video uu ka duubay isagoo kufsanayo bahdilayo oo barooranayso tooreyda uu gelinayay يعني horta nacasiintu mar walba waxay taagad garaystaan moogtay midka weak the weak that cannot help himself kuwa bay diiradda saaraan markaas lagu leeyahay Soomaalinimaha la soo celiyo Soomaaliha la jirto walaashii hadii saa lagu sameyn lahaa mid isaga la dhalatay guriga dhex fadhisay canjeerada u dubayso muxuu sameyn lahaa just because qabiilkiisa weyn saaxib qabiil waxba kuma qaadaysaan maalinta yawm al-qiyaamana qabiil waxa ku mataray yaa laytani kuntum turaban wala gaga siinaya hooyada soo xasuusanaysa hooya dhashay baa lagu leeyahay waxa u doodaysa hadda yaa arko xabsiga yar ee la geliyay la leeyahay bal adigana ku badbaad ninka la xiray hamoodin jacayl iyo cadaalad in loo xiray ragga kaga badbaad way dadka umada kale yeelan waxba kuugu sameynina halkan ku nasiinay u tay bariiskii baa loo geenayaa baastadii baa loo geenayaa wuxuu cuni lahaa baa loo geenayaa sigaarkiisii baa loo geenayaa jaadkiisii baa loo geenayaa khamrigiisii baa loo wax xaraamid wax ka xaraana ma jiraan gabar yar oo maskiina oo 13 jir ilaa 14 jir u dhiganto oo uu og yahay in uu ka awood badan yahay waxa ku sameynaya I don't believe maanta gabadha haday ahaan lahayd qabaa'ilada waaweyn Soomaali ku jiray waxa inay mari lahayd Soomaali runta isku sheegno ama been weeye dhax ama run weeye dhax wallahi billahi tallahi haduu qabiil weyn ahaan lahaa gabadha reerkeeda saan umaada gashaan waxa aniga igala sii xawiyaasan kan falka sameeyay waxa igala sii xawiyaasan mid kan ehelkeeda iyo qaraabadeeda kamid ah
ee saa u hadlaya dhiikarka waxa igu riday oo hadda live-kan aan usoo galayba waa kaa war xawayaan baatay nacas baatay xawayaan jaahil baatay gabadha xaqeeda hadoodsiin gunno yaroo lagu keenay iyo wax yaroo lagugu aamusiyey gabadha marka ninkaa lagu guuriyo ma inay raaxaysanaysaad moodaa waa la cadaabaya cadaab baa la gelinayaa cadaabteeda baad u guurinaysaan ilaahay kama baqaysid waad isliiday adigaa soomaali isku sii liidaya war soomaalidan il naxariis ma taqaano il cabsatoon bay leeyihiin anaa hadda kuu sheegay nacasow markaasaad leedahay hawsha waa la dhameeyey odayaal baa galay wal odayaashan caloosha weyn la xaaraanta ku wada naaxay maxaad ula fariisanaysaa soomaali o dhan baa garabkaaga taagane soomaali o dhan baa garabkaaga taagane why aa negotiation ula gelaysaa adiga miyaa la kufsaday gabadhii la kufsadayba ma hadlene ma daawatay videoga nacasow videoga ma daawatay markaad leedahay odayaal baa fariistay oo laga hadlay arrinkana saan weeyo caynkana maxayo qaraabo ma tihiin gabadha cadowgeedii koowaad weeye seelood baana tay gabadhaana adigaa iibiyey adigaa u ogolaaday in waxaa lagu sameeyo dulli baa tahay dulli kala jirin baa tahay dullinimadana adaa isugu wacan waxaan dhacayana adiga dartaa bay gabdhaha islaameed ugu dhacayaan soomaaliyeed tan hadda caadi bay noqonaysaa dhaqan soomaali ee leedahay muuse ahayn dhaqan hadda noo yimid weeye adigaana hadda caadi ka dhigaya way aad caadi uga dhigaysaa in gabdhaha soomaaliya intii la wada xumeeyo laba oday meel wada fariistaan wada hadlaan ma odaygan wada hadlaya odaygan kale la hadlaya la kufsaday odaygan maxaa meesha soo geliyay ma isagaa la kufsaday ma gabar uu dhalay baa la kufsaday gabar uu dhalay hadday ahaan lahayd muuse kula hadleen meelna kulamuu fariisteen nacasow kulamuu fariisteen war qofka bani aadamka hal mar bay naftiisa go'daa xawayaan baa tahay jaahil baa tahay soomaali o dhan baa garabkaada taagan markaasaad isliidaysaad leedahay annaga balaayo ma rabno iyo dhibaato ma rabno war dhibaato maada geysanin adigaa dhibaato laguu geystay adigii wey waxa cawradaada meelaha intii lagu kufsado laga soo duubayo haddana social media lasoo wada gelinayo gabadhaa soomaaliyeed uma qalanta ninka inuu guursado ma geeyo gabadhaa ka sharaf badan maxaa u cadaabaysaan gabadha maskiinta maxay idinka samaysa why waxaa kasii daran waxaan maqli jiray gabar xanuunkeeda gabar kalaa dareenta gabdhahan soomaaliyeed jaahiliinta meesha wada fadhiyana waxay kuleeyihiin waay aad ugu magacaabaysaa tuulayada war tuuladaada iyo qawaadka aabbaha iyo diintaada garan mayno tuulo yaroo gabar lagu kufsaday baa lasoo sheegayaa waad soo qayliyeysaa haddii adiga kugu dhici lahayd waa lagu damqan lahaa waa lagu kici lahaa waa lagu nixi lahaa dhibaato iyo cadaabna waad geli lahayd adduun iyo aakhirana waad fikri lahayd halkan aynu joogno hadday joogi lahayd counseling baa loo samayn lahaa suicide bay sameyn dadka waxyaabaha lagu sameeya gabar adag weeye waa lasoo laabtay waa la kala fariistay aabo eeg nin asaagi iyo ficiisa war laba wadan bay kula nahay iyaga Ethiopia la yiraahdo annagana Soomaali baana la dhahaa abti waxa Soomaaliya ka dhacaya maslaxadeeda maahan in Addis Ababa laga soo taliyaa maahan laakiin nacasiintaan oo kale ku jira walaalahoodii kufsanaya gabdhahoodii kufsanaya raggii baa la kufsanaya iska daanaagihii markaan haween halku jooga raggii baa la kufsanaya qowmuluudkii la sheegayay mar dhow dhacay anaa idin sheegayay war ilaahay ka baqa war dulinimada iska dulqaada war haweenkiina u naxariista qurbahay joogaan way wacayaan hay reehel maxaa laga soo sheegay reehelkii aabbaha dhakada ka was maxaa reehel u qaban kartaa adigii baa halkan ceer ku qaadanayo yaabane adigii baa yaabanoo nafti ilkaha ku sida ma reehel baa wax u qaban kartaa maxaad bent iskugu sheegaysaa taxi baad saarantay 24 saac gurigaadii baa ka war la'day xaaskaagii baa ka war la'day ilmahaadii baa iskuul geysan la'day reehel buu kuleeyay dagaal yar markuu ka dhaco gobolku ka yimi wuu qabsanayaa telefoonka maxaa la soo sheegay gobolkii ma reehel ma anago reehel war haddaynu qaaraanka aruurinaynaay hal lagu duulo hal la baabiyo gaalada dhashay hay Soomaaliya wax ka dhacaan nin walba fariinku aasanaya breegu qabsanaya masaasa Soomaaliya ma jirta masaasa wax ku raadinaysaa masaasa wax lagu raadinaya wadan wili lama sheegin wadan 24 madaxweyne leh oo hortooda intii gabar lagu kufsaday ka hadli waayay oo yuu madaxweyne u yahay marka ma cidiis uu madaxweyne u yahay inta laan dheerayaasha sheegatay laan dheere madaxweyne laan dheeraan ah saa iska dhaxday madaxweyne walbaad maqashid uu aamusay markay hawshan oo kala dhacdo uu aamusay Soomaalidii hooyankii Soomaalida intii shaaga madaxa laga wada mariyay ee amisom wadatay yaa lagu dul buqtiyaya kama oran karo hadday ahayd xalay bay ahayd markuu gaari amisom leeyahay intuu caasi dardaray 10 qofood ku dilay yaa isweydiiyay yaa maqlay
doorashadii baa lagu mashquulsan yahay ha nin weliba 5 kun qaado aamo aniga igu cadee warniyow balaayo madaxweynaha idin dhaxdo balaayo madaxweynaha idin dhaxdo balaayo madaxweyne u tihiin shacab waxaad hesheen laakiin maskiin oho aanan aqoonin sida dulliga loola dagaalamo wallahi shacabkii waa horta qabyaalad barteen kow meeshaad ka guulaysateen waa halkaa qoloqolad u kala fariisiseen qolo walba calan baa China looga soo sameeyay calankan baa adiga ku represent gareeya qolo kale calankan baa ku represent gareeya qolo kale calanka maalinta calankooda aad soo hadal qaadid balaayaad faraha la gashay balaayaad faraha la gashay calankooda maalinta aad taabatid waa balaayo adoo faraha la galay way heer waxay maraysaa gabadhii la kufsaday ha ka hadlin wariimoha war waan ka hadlayaa de I'll talk about it and there's nothing you can do about it heel iyo hooba waan la garab taaganay gabadha wax walba adduunka maanta iigu qiimaha badan hadaan hayo wasiin lahaa every single thing like I don't believe miraayada jabtay Soomaaliya oo dhan haday isku tagto inaynu kabi karno marba miraayadeeda jabtay adoon baad ka dhigtay dulli baad ka dhigtay wax xun baad ku samaysaan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu joogaa wuu daawanaya waxaan oo kalena waa waxyaabihii qowm lagu halaagi jiray halaagna wuu inoo sugnaadayba dhul malihin bad malihin wadankan aynu joogno go back to your country ba ka socota Soomaali marka la arko waa refugee baa lagu leeyahay Ethiopian baynu dulli u noqonay Amxaaraynu dulli u noqonay Kenyan baynu dulli u noqonay Ugandese baynu dulli u noqonay wax walbaynu dullinimada ka qaadanay Arab baynu kuleenahay walaal baynu war Arab halkeen walaal ku noqonay war diinta baa inaga dhaxaysa diinta Ilaahay wax ka soo sukeeyo ama ka shisheeyo inaga dhaxeeyo ma jirto cadowgeena koowaad way Sacuudiga wax yar ka sheegaysa war miyaadan muslim ahayn oo Sacuudiga islaamnimada ma isaga kaarkeeda bixiya markaarka islaamka lagu galiyay buu Sacuudigu bixiya Dubai saaway walaalaheen way halkee walaal ka noqonay war bal DNA iska qaad oo meeshaad Arab ka noqotay soo xadee ninkaadan mudowsan ka weyn baa tahay halkeed Arab ka noqotay war gabadhaas loo gurmado Soomaaliya Ilaahay aynu ka wada baqno subhanahu wa ta'ala maalin yawm al-qiyaama imaanaysa dadku wada siman yahay ninka lagu leeyahay laandheero waa ninkii naarta laga waayo laandheero ah nasabka lagu sheegayo waa kii jannada laga waayo jannada inoo wada ballana kii jannada laga waayo ka way midka gunta ah gabadhaana waxaan leeyahay walaalay Ilaahay dhibkaada ha ku sakhiro Ilaahay waxaan ka madoobay qalbigaada Ilaahay waxaan ha ka saaro waxa dulinimada kugu sameeyna waa 4 xabo oo dulinimo lagu soo koriyay xaaraantu marka qofka lagu soo koriyo waa noocaas oo miiran ma xishoodaan damiir ma lahan xaaraantii ba ka soo burqanaysa moogta saabay ka soo leedahay dhiig islaan iyo waxa lagu soo koriyay ma garanaysaa wax muslim loo soo dilay wax balaayo dulinimo lagu keenay wax wadan dhan lagu iibiyay ummadan jiritaankooda wixii lagu baabi'iyay baa lagu keenay baa lagu soo koriyay wiilow ama xanaaq ama sanka ha ku bararo حرام بالغو سو كري حرامي بانا tahay jazaa'adaadana waad helaysaa ama maanta adduunyada lagugu sii ama aakhiro lagugu sii waad heli you will gabar yar oo miskiina oo aan waxba qaban karin buu ku leeyahay iyo kufsanaya markaas uu ka sii duubaya markaas uu caytamaya afkiisa waxa ka baxay war aaway Soomaalinimadii xaraamigaas oo kale dadka magaalada la deganaameeyay mid ku jannataga ma la waay reebel buu ka dhashay reebel yaa taaban kara reebel yaa taaban kara naga qabiilkeenu ka hadalnay baa lagu leeyahay reebel waxan baad ku sheegtay Ilaahay baa xumaanta kugu dhaliyay anagu kumaanu dhalin ankaga ama adigay kugu iimaanaysaa wallahi billahi tullahi adigay kugu iimaanaysaa odayna meeshan ma jiro Maxamed Axmed Koofiyo oday ma jiro saaxib oday iima taliyo oday kuma taliyo oday reerkiisa kama badna wax maslaxad walba uu galay wuxuu fiirinayaa reerkan maslaxadiisa waa maxay odayga lagu sheegayo horta waa noocaas oo miiran ka qashin ba Ilaahay ka baqa oo gabadha la hadla oo odayaashan aan wareersan naga daaya oo Soomaaliya aynu u sara kacno oo aynu soo ceshano wadankeena wadamadan inta joogtana saynu ku joogno way wada ognahay ina idin kaga sheekeeyo ma saa wadamadan ku joogno waynu wada ognahay gabigeennaba laguma rabo they don't want you as here they want you to go back. You are not welcomed here. How many times are you go back to your own country? How many times are you Eriga? Why is kugu dejinayna marka? Why? Can you tell me the reason why? Dhul buu Ilaahay ina siiyay uma jeedno
dhagaynu leenahay laakiin waxba ma maqlaan. qabyaalad waxaa ahayn ma maqlaan. indhaylu leenahay qabiilkayga waxaa ahayn ma arkaan. afbo ilaahay ku siiyey qabiil waxaa ahayn kayga waxaa ahayn kuma difaaco. war ilaahay ka baqa meesha ka kaca. annagu waxaynu qaban karna garaankeena waynu qabanay. dad badan baa ku dhahaya maasaa yeeshid marka waanu qabanay. We don't have to post everything that we do, but we're doing something. At least we understand it. It's not like we just talk over here and then do our things. No, it doesn't go like that. It doesn't go like that. We are doing something. And we don't have to share with nobody. What we're doing from the heart. We're not doing just to get the fame and just to be somewhere or something. We're not doing for that. If you want to do something, get up for the sake of Somalinimo. ilaahay dartii iyo Soomaalinimo waxaad ku qabanaysid ku qabo. kuwa dawladda ku jirana haddaanan annaga iska qabanin heer waxaanu gaaraynaa aanan waxba ka qaban karin. migrationkii Ethiopian baa fadhiya. hay passport Australian baan wataa. Somalian 3 bil aadaya holiday. wuu fiirinayaa no you're not welcome please. fiisa kuma siin karo dalku gal ah waddankaagi ku laab. yaa aniga saa idhahay amxaar baa saa idhahay. Just because passport ajnabi baan wataa adigoo amxaara doesn't mean dalboorka inay iga celin kartid. way dhacday dadii ku dhacday baa la hayaa waddanka nala jooga loo diiday inuu waddanka soo galo for 5 years 5 sanadood. waxaanu intaa kadib dhowranaa. what are we gonna wait? waddankaagii baa tegaysaa waxaa lagu leeyahay maanta ma ciidi kartidoo Amazon baa shirays oo maxaa iga galay shirkaada sayna u ciidi karin. 30 maalin baan soo soonnaa maanta waa yawmul farax. waa inaan ilmahayga banaanka geeyaa masaajidka ku soo dukadaa ciida meel walba waddankayga aan ka tagaa. na dikana dhowda bandow baa saaran magaaladii. wadda hebel way xiran tahay wadda hela way xiran tahay soo ma socon kartid. haddaa socotid gaariga Amazon baa lagu marsiinaya. simple as that. you gone. qof ku doodayna ma haysatid. qof wax weydiinayna ma haysatid. hay baarlamaankii doorasho jirto oo jaamacadii dhan waa la wada xiray. war jaamacad iyo election maxaa iska galay? Soomaaliya hadda qofka jooga jaamacadaha dhan way wada xiran yihiin. bal jaamacad iyo police station iyo isbitaal la xiray halkee lagu arkay? halkee lagu arkay caalamka? waa saddexda waxayna la xirin. meeshaynu ku soconno meel dhow baad moodaan idinka. halkana ka fikiraysaan. anuu halkanan joogaa horta. yaa halkanan joogaa. haddaan iska dhaadhiciyo muhayo dhib ma arkay sidoo hawshan socto waxba kaama gelin. abti iskama dhaadhicin karo way qabanaysaa. mar baan ku kacayaa runta. And there's a time that you wake up with the reality. When you wake up to the reality, it's going to be too late. It's better for you to wake up right now and do whatever you can. Whatever you can. Let people hear your voice. Tell the world that you are something and you are going to be something. Put your name on the map again. International community. The whole problem, let me tell you this. Problem ka Somali iyo adduunka ugu weyn waa the UN. We don't want to be a part of the UN horta. That's one thing. I hope I implement this idea. The UN is our biggest problem. We don't have no other problem rather than United Nations. dhibaatada ugu weyn Soomaaliya waxay naga soo gaartay waa the UN ka. And we are not going to be a part of it anymore. We are sick and tired of it. Donation baa lagu siinayaa baa lagu leeyahay hey fila Soomaaliya ma soo dhaaftay iyo Nairobi. raggii meelahan ku jiray qaxootiyada iyo barakacayaasha iyo bakaaraha iyo dhex lugeynaya waxa ma gaaraan. oo yaad siisay marka donationka? yaad siisaa? Who do you give? Because we don't receive nothing. hay waxa lagu leeyahay NGO heblow baa waxa tiri sa NGO waa mid hortaagan Somali currency. Soomaaliya shilin Soomaali laga ma isticmaalo hadda. lacag uu waddankaada leeyahay ma jirto. dollar baa wax ku kala gadataa. Are you a part of America? ma Mareykan baynu ka tirsannahay. shilin Soomaali ma shaqeeyo Soomaali kama shaqeeyo. Ask me. waxa lagu leeyahay iisoo tuur oo maxaa la tuuraya lacagta iisoo tuur oo cashkii waddanka meeyay. There's no cash. waddan markii la burburinayna horta waxaa lagala dagaalamaa currency-ga. currency ma samaysan karna hadda. US dollars baa sanka lagaa geliyay. shaah baa cabaysaa $1 ku gadanaysaa. kabaa lagu masaxayaa $1 tuuraysaa. gaari baa raacaysaa $1 tuur. What the hell is that? There's a lot of people who can't afford that. How many people can afford even $1 for a day? There's no one. There's no jobs. There's nothing. dadka banaanka wax ka sugo marka the people that we provide. We send bills back home. They cannot survive for the next 5 years coming.
because what do you send $500